زيد بن حارثة رضي الله عنه. eebba ayaan ku dhaartay zayd bin xaaritha wuxuu ku habboonaa madaxnimo wuxuuna ahaa mid aan aad u jeclaa. saas waxaa yidhi nebi muxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee. waxaa anbabaxday sucda bintu thaclaba iyadoo oo soo booqanaysa reerkoodii reer macni. waxay wadatay wiilkeedii zayd bin xaaritha ee reer kacbi. markii ay cagaha dhigatay reerkoodii waxaa soo weeraray fardoolay reer alqayn ah, waxayna dhaceen maalkii. geeliya ayay kaxaysteen, maxastiina waa qafaasheen. dadkii ay maxaabiis ahaanta u kaxaysteen waxaa ka mid ahaa zayd bin xaaritha. xilligaas zayd wuxuu ahaa ilmo yar oo 8 sano madaxa sii gelinaya. waxay zayd keeneen suuqii caanka ahaa ee carabtu wax ku weydaarsan jireen lana odhan jiray cukaad, waxayna u soo xidheen iib. waxaa gatay maalqabeyn ka mid ah hogaamiyaashii carbeed, xakiim bin xasaam bin khuwaylid. wuxuuna soo siistay 400 oo dirham. sidoo kalena wuxuu soo iibsaday kuray kale, wuxuuna ku soo laabtay makka. markii ay ogaatay imaatinkiisa waxaa aaday eedadiis khadiija bintu khuwaylid si ay u soo salaanto una soo dhowayso. wuxuu ku yidhi, eedo, waxaan suuqii cukaad ka soo iibsaday koox addoommo ah. ka dooro midkii aad rabto, wuxuu kuu yahay hadiyade. khadiija radiallahu canha waxay isha marisay wejiyadii kurayda iyada oo kala xulanaysa, waxayna la soo baxday zayd bin xaaritha. sababtuna waxay ahayd wixii wejigiisa uga muuqday oo caqli iyo karti ahaa, wayna la tagtay. iyadoo aysan kaba soo wareegin wakhti dheer waxay guursatay khadiija muxamed bin cabdillaah. waxay damcday inay hadiyad siiso. waxay weyday wax ka fiican addoonkeedan qiimaha badan, zayd bin xaarith, wayna u hadiyeysay. haddaba marka addoonkan nasiibka badani ku jiro gacanta muxamed iyo daryeelkiisa, uuna ku liibaanay la saaxiibidiisa wanaagsan oo uu ku raaxaysanayo dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa suuban, hooyadiisii musiibadu uga habsatay waayidiisa. ilmadu isheeda kama qallasho, walwal iyo walbahaarna kama damo, hurdana ma lado. dhibaatada iyo murugada haysata hooyadii waxaa u sii siyaadinayay ma aysan ogeyn in uu nool yahay oo ay rajo qabto inuu dhintay oo ay ka quusato. hase yeeshee aabbihii wuxuu ka baadigoobay dhul oo dhan, wuxuuna weydiiyey socto kasta isagoo u tirinaya gabay murugo iyo beerdilaac ah. wuxuu yidhi, waxaan u ooyey zayd, mana ogi wuxuu ku sugan yahay, ma nool yahay oo aan rajo ka qabo, mise waxaa halayshay geeridii. eebbaan ku dhaartayee ma ogi, waan sahaybin. anigu gadaashay ma waxaa ku xaday dooxo mise buur. qorraxdaa i xasuusisa marka ay soo baxayso, maankaygana way soo gelisaa marka ay dhacayso. dhulka ayaan geela ku kaxayn aniga oo dadaalaya, baadigoobkiisana ka daali maayo inta geelu ka daalayo. noloshayda oo dhan baan raadinayaa ilaa aan ka dhinto. ruux kasta waa dhimanayaa hadduu rabo, hididiiluhu qarar ha ka tuuree. xilli ka mida xilliyadii xajka la aadi jiray waxaa xaramka soo aaday koox qabiilkii zayd ah. iyaga oo beydka dawaafaya ayay iska hor yimaadeen zayd. way iskarteen, wayna iswaraysteen. markii ay dhammaysteen camaladoodii ay ku laabteen guryahoodii, waxay xaaritha uga warrameen wixii ay soo arkeen iyo wixii ay soo maqleen. isla markiiba wuxuu diyaarsaday gaadiidkiisii, wuxuuna soo qaaday xoolo uu ku soo furan karo beerkiisii iyo indhihiisii farxaddoodii. waxaa soo raacay walaalkiis kacab. way anbabaxeen iyagoo u degdegaya makka. markii ay cagaha soo dhigeen waxay u tageen muxamed iyaga oo ku yidhi, ina cabdimudalibow, waxaad tihiin beydkii alle dariskiisa. waxaad sii daysaan ruuxii tabar daran, waxaad quudisaan ciddii baahan, waxaadna caawisaan ciddii laga gardaran yahay.
nagu waxaan kuugu soconnay wiilka yaga aad haysatid, waxaan kuu wadnaa wax lagu sii dayn karo oo hanti ah, abaal noogu gal, waxaad rabtana nooga beddelo. wuxuu yidhi Muxamed, waa kee wiilkaad u jeedaan? waxay ku dhaheen, waa addoonkaaga Zayd bin Xaaritha. ma idiin sameeyaa wax ka fiican madax furashada? waxay dhaheen, oo waa maxay? wuxuu yidhi, waan idinku yeerayaa, waxaana kala dooransiinaynaa aniga iyo idinka. haddii uu idin doorto, ha idin raaco idinka oo bixin wax maal ah. haddii uu i doortana, wallaahi in aanan ahayn ruux naca qof doortay. waxay ku jawaabeen, waad garnaqday, waadna ku xeel dheeraatay cadaaladda. Muxamed ayaa u yeeray Zayd, wuxuuna ku yidhi, waa kuwama labadaani? Zayd wuxuu yidhi, kani waa aabbahay Xaaritha bin Shuraxbiil, kanna waa adeerkay Kacab. wuxuu yidhi, waxaan ku kala dooransiinayaa inaad iyaga raacdid haddii aad rabto, iyo inaad aniga ila joogto. wuxuu ku jawaabay isagoo aan fakfakarin, maya, adaan kula joogayaa. aabbihii ayaa ku yidhi, war inkaar qabe, Zaydow, ma addoonnimaad ka dooranaysaa aabbaha iyo hooyada? wuxuu ku jawaabay, anigu ninkan waxbaan ka arkay, weligayna ka tegi maayo. markii uu Muxamed ku arkay Zayd arrintan la yaab kale, wuxuu qabsaday gacanta, wuxuuna la aaday xaramka. wuxuu la istaagay xijriga agtiisa oo ay fadhiyaan odayaal Quraysh ah, wuxuuna yidhi, Qurayshay imaqla, kani waa wiilkaygii, waa i dhaxlayaa, anna waan dhaxlayaa. waxaa aad u maqsuuday aabbihii iyo adeerkii, waxayna uga tageen Muxamed bin Cabdillaah. waxay ku laabteen reerahoodii iyaga oo faraxsan, niyadooduna degan tahay. haddaba laga bilaabo maalintaas, Zayd bin Xaaritha wuxuu noqday mid loogu yeero Zayd bin Muxamed. abtirkaas ayaa loo yaqaanay ilaa rasuulka laga soo saaray sala allahu calayhi wasalam, islaamkuna tirtiray ku abtirsiga ruux aan ku dhalin. halkaas oo eebbe ku soo dejiyey, udcuuhum liaabaa'ihim, ugu yeera aabbayaashood. markaas oo loogu yeeray Zayd bin Xaaritha, Zayd markii uu Muxamed ka doortay aabbihii iyo hooyadii, ma ogayn wax faa'iide ah oo uu ka faa'iidi doono, mana ogayn sayidkiisa uu ka doortay ehelkiisa iyo tolkiiba inuu yahay sayidka ummadihii hore iyo kuwa dambe, rasuulkii alle ee loo soo diray khalqiga oo dhan. maankiisa kuma soo dhicin dowladda xagga sare laga soo dhisay ayaa ka istaagi doonta dhulka dushiisa, taas oo cadaalad iyo wanaag ka buuxin doonta, qorrax ka soo bax iyo qorrax u dhac. isaga laftiisuna wuxuu noqon doonaa dhagaxdhigii ugu horreeyey dhismaha dowladda weyn. intaas oo dhan mid ka mid ah maskaxda Zayd kuma jirin, balse waxay ahayd dheeraad eebbe, wuxuuna siiyaa ciddii uu doono, allana waa kii leh dheeraad weyn. haddaba doorgelintii Zayd dhowr sano kadib, waxaa eebbe la soo saaray nebigiisa sala allahu calayhi wasalam hanuun iyo xaq. Zayd wuxuu noqday ruuxii ugu horreeyey ee ka islaama dadka la xoreeyey. miyay ka sarrayn kartaa horrayn ay ku tartamaan cid kasta oo tartantaa? Zayd wuxuu noqday xogiyihii suubanaha sala allahu calayhi wasalam, hogaamiye sahameed iyo khaliif uu nebiga ku dhaafo Madiina oo uu uga tago. sidii uu Zayd u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uga doortay hooyadii iyo aabbihii, ayuu rasuulkana u jeclaa Zayd, wuxuuna ku daray ehelkiisa iyo carruurtiisa. wuxuu ahaa mid u xiisa oo u hilooba markii uu ka maqan yahay, isaga oo ku farxi jiray marka uu yimaado ee uu ku soo laabto. wuxuu la kulmi jiray si aan si la mida ahayn ruux aan Zayd ahayn. tani waa Caaisha radiallahu canha oo inoo suuraynaysaa muuqaal ka mida muuqaaladii uu rasuulku aadka ugu farxay imaatinka Zayd. waxayna tidhi, Zayd ayaa Madiine soo galay iyada oo rasuulkuna gurigayga joogo. albaabkii ayuu soo garaacay. rasuulka ayaa u istaagay isagoo dharla, marka laga reebo wuxuu ku asturanayay xudunta iyo lowyaha inta u dhaxaysa.
wuxuu gaaray ilbaabkii isaga oo jiidaya maradiisii. waa salaan qooreeyey waana dhunkaday. wallaahi baan ku dhaartay inaanan rasuulka maalintaas ka hor iyo kadib midna arag isaga oo sidaas u dharla. muslimiinta dhexdooda waxaa ku faafay oo ku shaac baxday jacaylka rasuulku jecel yahay zayd, iyaga oo ugu yeedhay zaydkii maxabbada. waxayna ku naanayseen rasuulkii alle kii uu jeclaa. sidoo kale wiilkiisii usaama waxay u baxsheen isaga kadib kii rasuulku isaga iyo aabbihiiba jeclaa. sannaddii 8aad ee hijriyada ayaa eebbe subxaanahu wa tacaalaa ku imtixaamay kii wax jeclaa inuu ka qaado kii uu jeclaa. taasi waxay dhacday markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam waraaqda uu sii dhiibay saxaabigii la odhan jiray alxaarith bin cumayr al asdiy si uu ugu geeyo boqorkii busra, qoraalkaas oo diinta ugu yeeraya boqorka. markii alxaarith gaaray mu'ta oo ku taal bariga urdun, waxaa jidgooyo u dhigtay mid ka mida madaxdii qasaasinada shuraxbiil bin camar. wuu qabtay, kadibna inta xirxiray ayuu halkaas ku dilay. hase yeeshee arrintaas aad ayay nebiga sala allahu calayhi wasalam u dhibtay, maxaa yeelay weligiis ergey uu dirsaday lama dilin oo aan ahayn alxaarith. wuxuu diyaariyey ciidan ka kooban 3,000 oo dagaalyahan si ay u weeraraan mu'ta. ciidankii wuxuu madax uga dhigay xabiibkiisii zayd bin xaaritha, wuxuuna yidhi haddii zayd wax gaaraan hoggaanka ha loo dhiibo jacfar bin abi taalib. haddii jacfar wax gaaraan ha loo dhiibo cabdullaah bin rawaaxa. haddii cabdullaahina la asiibo muslimiintu ha iska dhex doorteen nin ka mid a. ciidankii waa ambabaxay. markii uu gaaray bariga urdun meesha loo yaqaano macaan, boqorkii ruum ee hiriqla ayaa soo kiciyey 100,000 oo dagaalyahan si uu u difaaco qasaasinada ay bahwadaagta yihiin. waxaa sidoo kale ciidankaasi ku soo biiray 100,000 oo carabtii gaalada ahayd. ciidankaas awoodda badan wuxuu soo degay meel aan ka fogayn meeshii muslimiintu degganayd. muslimiintu macaan waxay ku baryeen 2 habeen oo ay ka tashanayeen wixii ay samayn lahaayeen. qaar ayaa soo jeediyey in rasuulkii waraaq loo qoro, loona sheego cadowga tiradiisa, lagana warsugo amarka uu soo faro. qaar kalena waxay dhaheen wallaahi weligeen inaanan ku dagaalamin tiro, awood iyo farabadnaan ee waxaan ku dagaalamaynay diintan. ku dhaqaaqa wixii aad soo aadeen, eebbana wuxuu idiin ballanqaaday inaad ku guulaysataan labadii kala wanaagsanayd middood, waa guul ama shahiidid. intaas kadib labadii ciidan ayaa isku haleelay mu'ta. muslimiintii waxay muujiyeen wacdarro ka yaabiyey oo wareeriyey maankii reer ruum, laabtoodana geliyey cabsi ay ka qabaan 3,000 oo hor istaagtay ciidankoodii mahiigaanka ahaa ee gaarayay 200,000. zayd bin xaarith wuxuu ku mintiday raayadii rasuulku u dhiibay ee ciidanka, mintidid aan horay taariikhda haliyada loogu sheegin, ilaa uu dhulka ku dhaco isagoo oo jirkiisu ay ku yaalaan 100 waran, dhiiggiisana dhex dabaalanaya, halkaasna ku naf waayey. waxaa raayadii ciidanka qaaday jacfar bin abi taalib, wuxuuna bilaabay inuu difaaco difaacid midda ugu daran ilaa uu isna saaxiibkii ka daba tegay. waxaa haddana qaaday raayadii cabdullaah bin rawaaxa oo ku halgamay halgamid geesinimo leh ilaa uu isna ka daba geeriyooday labadiisii saaxiib ee ka horraysay. dadkii waxay hogaamiye ka dhigteen khaalid bin waliid oo dhowaan muslimay. wuxuu sameeyey dib u gurasho xeelad dagaal, wuxuuna ciidankii ka badbaadiyey dabargo iyo tirtirmid. waxaa soo gaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam warkii mu'ta iyo dhimashada 3dii hogaamiye. wuu murugooday murugo uusan iyada oo kale weligiis murugoon. wuxuuna aaday qaraabadoodii oo u soo tacsiyeeyey. markii uu soo gaaray gurigii zayd bin xaaritha, waxaa maciin soo biday gabadhiisii yarayd iyada oo oohin la qaylinaysa. rasuulkiina waa la ooyey
ilaa codkiisu kor u baxay. sacad bin cubaada ayaa ku yidhi, sidani waa maxay rasuulkii allow? wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam, waa oohinta xabiibku u ooyo xabiibkiisa. taariikh nololeedka saxaabada waxaa alifay الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، waxaa tarjumay cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro, waxaana ku codeeyey cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan.